جالي القصة دوادا يوتيوب جاي أحمد دويو ما أنت برامج كأنه عن قصة قادنا وركي ودن بعالمها أذربيجان يرمينيا ودجال ما هي اللي بدجال ذا يوتيوب خدع هي قبل كتير أي ورك وقاعد أبي أحمد أيام كل رجال الجورناليست ولكن يقاب كان ورك وآخر بريج يونيفرس أنا كشقين هاي الجورناليست سنين هول سهلا وضفك قارئ إسكسو قلان أي ربع تصل مركب ورك آخرنا لما جرجر دونه لا صعو korkan ka akhrinay sida warka u soo tabinayo tabinta wanaagsan ayaan rabaa sidoo kale inta barnaamijkan aan tabinayo jaaliyal wararka caalamka ayaan ku eegnay Azerbaijan iyo Armenia ayaa dagaalamay sida ka warqabtaan dhowr toddobaad dalka kan socda jaaliyal uu sii xoogaysanaya waxa la soo hayay gobolka Nagorno-Karabakh oo xagga Armenia wax weeye si weyn ugu dhagan tahay 30 sano dagaalkan uu socday jaaliyal wax yar aan daawasiyo fiidiyo madaafiicda la isku garaacay جالي سيد أركيسان مدافع بان لسوق راعيها Nagorno-Karabakh dagaalkaasi oo maganaysa si weyn caalamku iminka uu eegayo dagaalka guud waxa ka gaaray Azerbaijan madaxweynaha wadankaasi Azerbaijan Ilham Aliyev waxa uu sheegay in guulahaasi ay ugu wacan tahay dowladda Turkiga oo siisay diyaarado drone oo markaasi wax weeye cirka ka tooganaya taangiyada ay leeyihiin Armenianka 1 milyan oo lacag baa lagu qiyaasayaa buu leeyahay inta laga baabashay lacagaha markaas malaayiinta ay Armenianku ku dhumeen xagga madaafiicda oo markaas loo isticmaalay diyaaradaha droonka oo markaas Bayraktar la yiraahdo oo laga leeyahay wadankaas Turkiga oo ay ka soo jaaliyal Armenia waxa ay markaas ku eedeynaysaa in markaas dawladda Azerbaijan ee muslimiinta shiicada ay halka ka dagaalameyso ay eedeynayso oo ay leedahay wax taageeraya dawladda Turkiga Rajab Tayyip Erdogan sidoo kale waxa taageero uu ka helayaa beelada Armenia baa leh la soco dawladda wadankaas Israa'iil ra'iisul wasaaraha Armenia waxa leeyahay xanuunsanaya hadoo meel buu eedeynaya ninkan jaaliyal Armenia 30 sano ay gacanta ku haysaa dhulka kani waxa ay qabsatay berigii uu madaxweynaha Haydar Aliyev madaxweynaha iminka joogay Azerbaijan Ilham Aliyev abihi Haydar ay bariga dhulka qabsatay 30 sano iminka u dheentay dadka deegaanka waxa ay leedahay waa masiixiyiin saad ka warabta Armenia waa masiixi orthodox jaaliyal dagaalkaas uu sii socda barnaamijyo kale ayaan ka samayn doonaa oo falanqeyn oo soo dhigi doono YouTube-keena Toyshow aan ku soconay dagaaladii Ethiopia ayaa jaaliyal xoogaystay ra'iisul wasaaraha markaasi wax weeye Ethiopia ayaa markaasi shir jira isdaba jooga qabanaya waa Abiy Ahmed ninka la yiraahdo wax yar aan dhageysi jaaliyal niyaagare hezboy zare kahadi Ethiopiawian Leaders have wounded Ethiopia. Ethiopia's very hand that jaaliyal Abiy Ahmed ayaa dhageysanaysan oo markaasi wax weeye ka hadlaya dagaalada ay ku qaadeen wax weeye gobolka Tigray waxa uu leeyahay gacantii qoodisay dadkii badbaadiyay ciidamadii dul joogay 20 sanadood oo markaasi ilaalinayay gobolka dhibaatada ku haysa Eritrea ay iminka anaga nagu soo jeestay gacantii qoodisay goynahayaan ayli hayesh ee madaxweynaha deegaanka Tigray ayaa si liftiisa loo xir aan daawsi awdagazmasa yabilna ay diplomacy ay khali ومقلسان جاليال مدحوينها دولة Tigray waxa uu markaas sheegay in marka ay yihiin maamul madax bannaan isla markaana isdoortay horena ay sii wadeen doonaan dagaalada ka soconaya waxa weeye gobolka Tigray waxa yar aan dhageysiyo hawsha halka ka socota meesha gaarsan tahay ciidamadii oo dhan waa la hubeeyay dhalinyaradii hooyooyinkii cid walba oo Tigray hubkii qaatay weyn heesayeen ma ku heesayeen aan dhageysiyo ya allah kullana zaybullo jaaliyal wada aragtaa gobolka Tigray aad buu ugu sidiraya dhulku booraley weeye waa la isku hayaa dagaalku uu sii xoogaysan doonaa saraakiishii iyo ciidamadii saligooda gobolka Tigray ee deegaanka u dhashay guud ahaan waxa ay markaas taabacsan yihiin maamulka Tigray ee TPLF jabhad hubeysan weeye 30 sano wadanka soo maamulayeen ragga milisana oo ka dhashay weeye dagaalkaasi uu sii cuslaan doonaa waxa la filayaa in guur ay gaareen sidii lagu yaqaan nimanka kani niman fool adag oo magaranaysa mited oo midaysan oo gobol oo dir weey waxa la filayaa guur inay gaareen waxaana markaas ay sheegeen ciidamadu in marka xaq ay ku ekaan doonaan hatta ay mar labaad ku laaban doonaan hadda zaabo ay ugu tagi doonaan Abiy Ahmed sida ay leeyihiin jaaliyal xaaladda Ethiopia waxa ka hadlaya reer galbeedka qaramada midoobay iyo waliba midowga Yurubna waxa ay markaas ku baaqayaan nabad iyo magaranaysa wax weey deganaansho jaaliyal
wararkii ugu dambeeyay ee Itoobiya iyo Azerbaijan iyo Armenia dagaalamaya ayaan jeclay halkan ku soo gudbinay Axmed Tooyo weeye jalayaal wararkan wax akhrinaya anigoon jarjarin gooyn korka ayaan ka akhrinaya waa in soo fiirinayay waad arkaysaan jalayaal tabinta wanaagsan ayaan jalayaal barnaamijka soo kale ku muujinaynay iyo waliba wariyanimadu saxafiga rasmiga ah inuu la mid yahay fanaanka oo ay tahay wax bixin eeba waana la socotaan dadka qaar laakiin way magaranaysa soo galahayaan iyagoo oo hawshooda ah wax laga yaabo qofan dhakhtar ahayn dhakhtar iska noqdo mid engineer noqdo journalistuna qofan ahayn ma noqon karahayo waxaan markaa ugu talagalay dadka caadiga ah barnaamijka dhageysanaya in ay la socdaan warkaan soo tabinahay lama jarjarin lama taataaban wax waraaqana kamaanan eegay waad arkaysaan jalayaal ana korka ka qabataa wararka marka sheegayso soo tabinayso jalayaal Axmed Tooyo oo 2008 ugu dambeysay war oo markaas ka akhriyay TV-ga Universal iyo warar aan soo tabiyo inta badan falanqaynta ugu aragteen oo maanta waxa weey warar intii soo tabinayay idin tusayay journalistaha rasmiga ah kan uu yahay jalayaal inta aan dib kulmi doono YouTube-ga naga daawanaysan waa Axmed Tooyo la socya Tooyo show maahan subscribe soo saar ma salaam jalayaal